السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي القالي وميك استجوبتين وصدوا هذا الشانل كيني حرنت عند عافماتك ولا شيء شكري آدم بوله ولا العلم معلومات حرباينا كهلا سؤال بدن أصول لابتي وما تدن لي ويدينا يوصبتن دينا أورك له دينا أورك مركاي وحياله لو قرتو actually أنا حاول لينجري وحادي جاي ريسني سيد أو وحير أم ليسيد قف قلب وين يليهن hooyooyin yar ayaa jira cusub oo ka siinin uurka markii waxyaalaha asmaamaha lagu garto oo maanta dhan kusoo weydiina ku dhahayaan isha asmaamayaasha uurka lagu garto uurka because aan ku wareersanahay waxa ugu horeysa waxa weeye ugu weyn oo lagu garto uurka qofka dumarka waxa weeye inay weyso caadadeeda hadda caadadeeda weysid laazim ah in uur leedahay laakiin waxyaalaha ugu waaweyn ka mid tahay talabaad waxa weeye waxa ku xanuunaya mindhicirka iyo dhabarka xanuunayo marmarka qaarkiis waxa laga yaabaa dhabarka uu xanuunayo mindhicirka in infection qabtid mise meel kale laga hayo laakiin iyagana way ka mid tahay waa asmaamayaasha kale lagu garto waaye waxa kale lagu gartaa laba badan ayaa dareemaysaa hurdo badan ayaa dareemaysaa waxa kale lagu gartaa dad waxaa jiro abitaadka kaluma oo actually xifan maskaxdooda maqan tahay oo maanta dhan abitaad cunto cunin oo hadhow ku dhahayo maanta dhan wax ma cunin dad kale waxaa jiro waxyaalo ay jeclaadaan waxay maanta dhan cunayaan ama waxbay waxay ahaat waxa laga yaabaa ugaali dad baa ku waasha oo maleynay cake run ahaantii dad soo martaan kasaaya qaas ahaan aan kasaay dadka ani u kasaay isku kasayno soo waxaa jiro dad waxaa jiro marka abitaad kalumaayo qaar waxaa jiro maxaa la dhahaa cunto ku waalanayaan qaar laba dareemayaan qaar wax ma dareemaan actually caadi ay yihiin hadda waxaan ka hadlayaa kuwa wax dareema markay uurka ay leeyihiin qaar kale waxay sameynayaan maxaa la hurdo maanta dhan ma kacayaan qaar kale xanaaq iyo waxa ku furmaayo waxyaalo badan ku furmaayo because hormone changes weyn ayaa ku dhacay jirkeeda of course waxyaalo badan ku furmaayo waayeen waxa kale dareemaysa daal badan iyo maanta dhan iyo maxaa la dhahaa iyo sabar ma laha patient dhan ma laha waxa kale dareemaysa hadii la dhaho dhinaca naasihida ayaa isbedelayo qaar way weynaadaan ibtooda way xanuunayaan way kaarayaan intaas waxa waaye in inta oo normalka ah oo dadka lagu garto qofkaas inuu yahay qof oo maxaa la dhahaa uur leh markaas abxaysa waxa qaadanaysa baashi check up isku check up gareeyo hadda aragtid laba leen ku soo qorto markaas waxa tahay qof uur lahaatay hadda laba check ku soo dhigin markaas isbitaal aadan ku dhila dhinac dhiiga laga fiiriyo marmar wuu isqarin karaa duu uurka aad u yar yahay dhiiga laga fiiriyaa oo kaadida laga waayo laakiin hadda uurka weyn yahay laazim waa arkaa duu yar yahay hadii kalaba marka waxaan la hadlayaa hooyooyinka yar yar ee ka seenin markasta ay weydiiyaan maanta dhahaan shukri waxaan rabaa hadda saan ahay uur maan leeyahay ma ogaan kari because waxaan ku ogaan karin waa su'aalo soo laabtay waxaan dhahaa horta marka hore inta waxba sameynin waash isfiiri hadaa weysid markaas ka bacdi hadii wixii kugu sii saaideen markaas dhakhtarka la kaashaan dhahaa soo waxaan rajeynayaa hooyooyinka yaryar inay wax ka faa'iideen iyo kuwa kale soo socdaan meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka waana inii soo daaya walaashin shukri aadan buule asxaabta sheekaraya sida dadka uga faa'iideen inagoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu